kulanti wanaagsan daawadayaal kula soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobadaan maanta barnaamijkeena ku soo qaadan doonana waxaa kamid ah madaxweyne Farmaajo oo qaaday tallaabo geesinimo leh kadib markii uu amray in shaqada laga ceeriyo xogiyihii xafiiska ra'iisul wasaaraha oo awood u sheegtay saaxiibada ra'iisul wasaaraha hore Xasan Cali Kheyre xog iyo warbixin ku saabsan dhacdo lama filaan oo madaxtooyada Soomaaliya ka dhacday ayaan idin soo gudbin doonaa insha Allah shakhsi ay qaraabo dhow yihiin madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku dhow in loo magacaabo ra'iisul wasaaraha dalka ku saabsan siyaasigan oo ka tirsan xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre uu isaga tagay ayaan idin soo gudbin doonaa madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya waxay fariin lama filaan u direen madaxweyne Farmaajo Kenya waxay diyaaradaha Soomaaliya u diiday dalkeeda ganacsatada waddankana waxay si weyn uga hor yimaadeen go'aankan waxaana ay xasuusiyeen in dadka Soomaaliyeed ay yihiin dadka ugu nadaafadda badan maadaama ay yihiin dad muslimiin madaxweynaha maamulka koonfur galbeed lafta gareen oo wacdara ka dhigay magaalada Muqdisho iskana bareejiyay madaxweyne Qoorqoor iyo xogta kulanka madasha iyo sidoo kale madaxweynaha Hirshabelle ay ku yeesheen magaalada caasimadda qodobadaas ayaynu ku faahfaahin doonaa barnaamijkeena waana subax axada labada bisha 8 ee Agoosto sanadka 2020 waana maalintii saddexaad ee Ciidul Adha ciid wanaagsan daawade barnaamijkan wararka Soomaaliya oo mid aan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka haddaba daawada ka qayb qaada dibadhiska dalka anagoo ka dheeraanayna wax waliba oo dib inoo celi kara waad ku mahadsantihiin inaad taana la faataan ee fadlan nala faafiya wararka adigoo la wadaagaya saaxiibadiina kuna sheer garanaya baraha bulshada warar la xiriira shakhsi ka mid ah xukuumadda ra'iisul wasaare Kheyre oo la filayo inuu noqdo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya ayaa inoo soo socda laakiin waxaynu ku bilaabi doonaa siyahayaha xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mahdi Maxamed Guleed ayaa u magacaabay Cabdiraxmaan Macaawiye Sheekh Ibraahim xilka xogayaha joogtada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha isagoo xilka ka qaaday Cabdirasaaq Xuseen Aadan oo loo yaqaano Cabdirasaaq Caato oo muddo kooban xilkaasi hayay shakhsiga xilka laga qaaday oo horey uga tirsanaa xafiiska madaxweyne Farmaajo ayaa la magacaabay toddobaad ka hor kadib markii xilkii laga tooray ra'iisul wasaarihii hore isla mar ahaantaana shaqadii laga bedelay xogayihiisii hase ahaatee xog lama filaan ayaa ka soo korortay sababta keentay xilka laga qaaday xogayaha oo ahaa shakhsiyaadka ugu dhow madaxweyne Farmaajo warar laga helay madaxtooyada Villa Soomaaliya ayaa sheegaya in sababaha xilka looga qaaday xogayihii kumeel gaarka ee xafiiska ra'iisul wasaare Cabdirasaaq Caato ay la xiriirto xadgudub lagula kacay Yaxya Cali Hareeri oo ka mid ahaa raggii aadka ugu dhowaa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo shalay la isku dayay in gaari uu wato xoog lagula wareego Yaxya Cali Hareeri oo gaariga aan xabadaha kale la socday oo uu ku tagay hoyga ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Kheyre waxaana markii uu ka degay gudahana u galay hoyga ra'iisul wasaarihii hore waxaa markiiba gaariga hareereeyay ciidamo uu soo diray xogayaha kumeel gaarka ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Cabdirasaaq Caato kaasoo darawalkii wada gaariga ku amray inuu ka dego kadibna way la wareegeen arrintan ayaa si weyn waxa uga carooday xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya kuwaas oo fariin ahaan ula tagay madaxweynaha jamhuuriyadda waxaana uu sheegeen inaanay u dulqaadan doonin habdhaqanka qalabsan ee lagula kacayo raggii ku dhawaa ra'iisul wasaarihii hore isla markaana xogayaha kumeel gaarka Cabdirasaaq uu maalmahan beegsi iyo xadgudub ku hayay raggii la soo shaqeeyay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre intaas kadib madaxweynaha jamhuuriyadda dalka ayaa degdeg u amray in xilka laga qaado Cabdirasaaq Caato waxaana uu la xiriiray siyahayaha xilka ra'iisul wasaaraha Mahdi Guleed Qadar oo durbe xilka qaadis ee la socotay magacaabis soo saaray waxaana xilkaasi kumeel gaar ah loogu magacaabay Cabdiraxmaan Macaawiye oo horey u ahaa ku-xigeenka xogayaha joogtada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha dhacdooyinka noocan oo kale ayaa xilliyada qaar ka dhaca hay'adaha dawladda laakiin dad badan ayaa soo dhaweeyay tallaabada uu qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda oo uu ku ciqaabay xogayihii dhibaatada geystay qaar ka mid ah raggii sida weyn ugu dhawaa Xasan Cali Kheyre ayaa qaarkood shaqada ka tagay sababo loo maleynayo inay ka mid tahay dhacdadii shalay ka dhacday xafiiskiisa oo kale dhinaca kalena madaxweynaha dalka ayaa weli waxa wada kulamo uu ku soo xulanayo ra'iisul wasaarihii dalka waxaana uu kulmaan caadi ahayn la yeeshay xubno si weyn loogu saadaalinayo xilka saacadihii la soo dhaafay waxaa si weyn u soo shaac baxaya siyaasi ka tirsan xukuumadda hadda xilka sii haysa ee uu ka tagay Xasan Cali Kheyre wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha injineer Cabdullaahi Cali Xasan ayaa kulamo kala duwan la qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda dalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taas ayaana keentay in haatan loo maleynayo in shakhsigan uu ku dhow yahay xilka madaxweynaha iyo wasiirka dhowr mar ayay kulamo yeesheen kadib markii uu dalbaday xilka ra'iisul wasaaraha xubin ku dhow xafiiska wasiirka ayaa sida inoo xaqiijisay Mr. Wasiir Xasan ayaa la rumaysan yahay inuu xiriir dhow la leeyahay xubnaha mucaaradka waxaana uu ka soo jeedaa gobolka Banaadir halka ay isku dhow yihiin madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isku beel ka soo wada jeedaan hase ahaatee kulankii dhex maray isaga iyo madaxweyne Farmaajo ayaa u muuqday isku soo dhawaashiyo iyo inuu madaxweynuhu u magacaabi doono xilkan maadaama
uu yahay shakhsi leh awood badan islamarkaana culeysyada haatan saara madaxtooyada Soomaaliya kala yaray karaya. wararka qaar ayaa sheegaya in kanistiisa xafiiska labaad ee ugu sareeya dalka ee ra'iisul wasaaraha ay ka shaqeynayaan xubno ka tirsan madasha xisbiyada qaran oo ay isku dhow yihiin siyahayaha wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya Jiran Cabdullaahi Cali Xasan, balse waxaa jagadaasi kula loolamaya Dr. Cabdinaasir Cabdulle Maxamed oo garab ka haysta xildhibaanada baarlamaanka iyo dowladda waddanka Mareykanka oo sharciga labaad ka haysto. madaxweynaha Galmudug ayaa sidoo kale siyaasigan oo soo noqday musharaxa xilka madaxweynaha doorashadii la soo dhaafay si weyn u garab taagan. waxaa horey u jiray warar ay heshay warqaad kaas oo sheegaya in agaasimaha madaxtooyada Soomaaliya uu xilkaas ku dhawaa, laakiin walaaca ka yimid beesha caalamka ayaa qasabtay in madaxweynaha uu go'aankiisa bedelo. sidoo kale waxaa jira dhowr siyaasi oo magacyadooda ay soo gaareen kuwaas oo xafiiska madaxweynaha yaala isla markaana doonaya xilka ra'iisul wasaaraha, waxaana ku jira Yuusuf Garaad Cumar iyo xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ahna danjirihii hore ee Soomaaliya u joogay wadamada Djibouti iyo sidoo kale waddanka Ethiopia. si kastaba madaxweyne Farmaajo ayaa kulamo aan loo kala harin la qaatay madaxda Galmudug iyo Hirshabelle kuwaas oo xusulduub ugu jira in shakhsi deegaanadeeda ka soo jeeda xilka loo magacaabo. sidaad wararkeena hore ku daawateen, xubnaha beesha caalamka ayaa madaxweyne Farmaajo ka dalbaday inay aragti ku lahaadaan ra'iisul wasaaraha cusub ee la soo magacaabayo si lamid ah sidii horey ugu sameeyeen dowladihii dalka soo maray, laakiin fila Soomaaliya ayaa arrintaa ku gacseertay. baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhawaan xilkii ugu tooray Xasan Cali Kheyre kadib kala fadhi lama filaan oo yeesheen, laakiin Kheyre oo muuqaal soo duubay ayaa sheegay inuu isaga iscasilay. haddaba wararka ku soo kordha soo magacaabida xilka ra'iisul wasaaraha wararkeena daba ayaan idigu soo gudbin doonaa insha Allah. iminkana aan fiirino madasha xisbiyada qaran ee hogaamiyaan madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda dalka Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uga digay inuu wareegto ka soo saaro shanta xubnood ee golaha adeega garsoorka ee xukuumadda xilkaasi haysa ee magacawday 3 bisha Julaay. qoraal ka soo baxay madasha xisbiyada ayaa lagu faahfaahiyay sharci darrada talaabooyinka ee qaaday xukuumadda xilgaarsiinta oo ay ka mid yihiin inay magacawdo guddiyo masiiriya oo horey looga gaabiyey sida xubno ka mid ah golaha adeega garsoorka iyo sidoo kale hay'adda batroolka Soomaaliyeed. waxaan ugu digaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inuusan wareegto ku soo saarin xubnaha shanta ah ee ka tirsan golaha adeega garsoorka inta la waafajinayo dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka ayaa lagu yiri qoraalka madasha. dhinaca kale, madaxweynayaashii hore ee dalka ayaa soo dhaweeyay talabada ay qaaday dowladda federaalka ay markaasi ku magacawday guddiga farsamada ee ka soo shaqeynaya nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa, kaas oo ahaa qodob ka mid ah qodobadii ay ku heshiiyeen dowladda iyo maamul goboleedyada kadib shirka ay ku yeesheen Dhuusamareeb. hore ayaa dowladda federaalka Soomaaliya waxaa loogu cambaareeyay talabada ay ku magacawday guddiga garsoorka dalka, taas oo lagu sheegay inaan hab sharciya loo marin. warqaha TV ayaa weli nagala socotaan, wararkii Soomaaliya ayaa daawanaysaan. iminkana madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa dad badan ka yaabsaday kadib markii si aan horey loo arag loogu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho. wafdi oo horkacaya madaxweynaha Koonfur Galbeed Lafta Gareen ayaa waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale dadweyne kale. xubnaha soo dhaweeyay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen waxaa ka mid ah wasiiro ka tirsan xukuumadda, xildhibaano iyo sidoo kale siyaasiyiin caan ah, laakiin kuma uusan jirin gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed. waxaa jira warar sheegaya inuu khilaaf xooggan ka dhaxeeyo Lafta Gareen iyo sidoo kale gudoomiye Mursal, taasna ay keentay in gudoomiyaha uu ka baaqsado soo dhaweynta. laakiin sida weyn ee loogu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho malaha waxay jawaab u ahayd madaxweyne Qoorqoor oo isna si aan horey loogu arag toddobaadka loogu soo dhaweeyay magaalada caasimadda. madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa lagu wadaa inuu kulamo la qaato madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana ka wada hadli doonaan arrimo ay ka mid yihiin doorashada dalka ka dhici doonta. magaalada Muqdisho ayaa waxaa horey ugu sugnaa madaxweynayaasha Galmudug iyo Hirshabelle iyagoo kulamo kala duwan la qaadanaya madaxda dowladda federaalka Soomaaliya. wararka ku soo kordhay ayaan idinla socodsiin doonaa. iminkana madaxweynaha maamulka Hirshabelle ayaa kulamo caadi ahayn la qaatay madaxweynayaashii hore ee dalka. waxaa xalay magaalada Muqdisho shir gaar ah ku yeeshay madaxweynayaashii hore Cali Mahdi Maxamed, Shariif Sheekh Axmed, Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare iyo xubno kale. kulankan ay yeesheen madaxdii hore ee dalka iyo madaxweynaha maamulka Hirshabelle ayaa looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan isbedelka ku dhacay xukuumadda. waxaa sidoo kale kulankan oo ka dhacay Muqdisho looga hadlay shirka beesha dowladeed ee la filayo in maalinimada Isniinta uu ka furmo magaalada Muqdisho. shirkan ayaa waxaa ka qayb geli doona madax kala duwan, siyaasiyiin iyo waxgarad ka soo jeeda beelaha Mundulood. madaxweynaha maamulka Hirshabelle oo u muuqda mid xilligan ku kacsan siyaasadda madaxtooyada Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ka wada kulamo uu la qaadanayo madax ka tirsan dowladda iyo siyaasiyiin mucaarada. madaxweynayaashii hore ee dalka ayaa sidoo kale Muqdisho ka wada kulamo xoogan
iyagoo dhawaan la kulmay madaxweynaha galmudug qorqoor iyo guddoonka baarlamaanka Soomaaliya. Si kastaba waxaa lagu jiraa xaalad kala guura, siyaasiyiinta ayaana isha ku wada haya in ay samaystaan isbahaysiyo si ay doorashada soo socda uga soo baxaan. ugu dambeyntiina Kenya ayaa si weyn uga carootay go'aanka ay dowladda federaalka Soomaaliya ku diideen qaadka loo dhoofiyo Muqdisho iyo gobolada kale ee dalka xilli la fasaxay diyaaradaha caalamiga. Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in 3 bisha wixii ka dambeeya diyaaradaha caalamiga ay ka soo degi karaan Muqdisho kadib tallaabooyinkii laga qaaday xayiraadda oo uu keenay cudurka safmarka ee coronavirus. xayiraadda la qafiifiyay ma qusaynayso duulimaadida jaadka mirowga maadaama ogeysiis cireed oo kale laga soo saari doono arrintan, ayaa ay sheegtay hay-adda duulista rayidka ee dowladda Soomaaliya. arrintan ayaa waxaa si weyn uga carooday ganacsatada qaadka waddanka Kenya, kuwaas oo sheegay in dowladda Soomaaliya ay bartilmaameedsanayso qaadka dalkooda. hase ahaatee Kenya ayaanan Soomaaliya ku dirin dalalka ay u fasaxday inay dalkaasi booqan karaan. Maraykanka iyo dalal kale oo Yurub ayaana sidoo kale booqan karin Kenya, halka Shiinaha oo halkii uu ka soo bilowday cudurkan ay dalkaasi Kenya tagi karaan. Soomaaliya oo ganacsi baaxad weyn leh ee Kenya leh ayaanan tagi karin dalkaas, waana sababta ay ganacsatada qaadka miraaga waddankaasi Kenya ay si weyn arrintan uga caroodeen. waxaan ka dalbanaynaa dowladdeena inay si degdeg uga fiirsato sida ay duulimaadada Soomaaliya u imaan lahaayeen Kenya, ayaa lagu yiri farriin ay ganacsatadan barahooda bulshada ku baahiyeen. waxay ganacsatada Kenya sheegeen in Soomaaliya ka helaan lacag aad u fara badan, laakiin arrinta yaab kale ee ganacsatada u geysteen dowladooda Kenya ayaa ah in dadka Soomaaliyeed ay yihiin kuwa muslima isla markaana nadiif ah, maadaama maalintii ay weyse qaataan isla marhaatan ay salaada dukadaan. salaada ayay weyse qaataan oo gacmahooda si joogto ah ay u dhaqaan marka wax khatar ay noogama imaanayso dadka inooga soo safraya Soomaaliya, ayay sheegeen ganacsatadan oo u doodaya qaadkooda. Kenya ayaa malaayiin dollar ka sameey jirtay qaadka ay geyso Soomaaliya, laakiin xukuumadda Muqdisho ayaa qaadkaas hor istaagtay. qodobkaas ayaa ugu dambeeyay barnaamijkii wararka Soomaaliya oo aad ka daawaneysaan Warqad TV. barnaamijka lamid insha Allah intaan ku kulmi doono waxaan idinka tagayaa sidaa nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.